qaybtan waxay ku bilowmataa Rayuu wuxuu galay fasalka sahminta godadka. Macalinka ayaa ku dhawaaqay inay dhameeyeen casharadii hordhac ahaa ee sahminta godka. Galabtii waxay geli doonaan dabaqa koowaad ee god dab ah. Amoon wuxuu u muuqdaa mid aad u walwalsan markuu maqlay arrintan, markaas Rayuu ayaa kula taliyey inuusan iscadaadin badan, haddii kale wuxuu tamartiisa ku dhamayn doonaa ka hor inta aysan xitaa bilaabin sahminta. Markii macalinku weydiiyey haddii qof su'aal qabo, Rayuu ayaa gacanta taagay wuxuuna weydiiyey haddii ay jirto hab lagu tago dabaq god ah oo hore loo nadiifiyey si degdeg ah. Su'aashaas waxay cajabisay macalinka, balse wuxuu sharxay in godad gaar ah oo ku yaal gobollada koonfureed ay leeyihiin astaantaas. Wuxuu intaa ku daray in godad noocaas ah aysan ka jirin loon sida uu og yahay, maadaama uu keliya ka maqlay sheekooyin. Amoon wuu la dhacay aqoonta Rayuu wuxuuna yidhi ma yaabna inuu gaaray heerka daank. Laakiin Rayuu wuxuu si degdeg ah u bedelay mowduuca, isagoo leh waxaan keliya ka maqlay qof kale. Galabkii markay adventureryada cusub isdiyaarinayeen, waxay barteen in magaalada si buuxda looga dhisay hareeraha godka. Waxaa loo sheegay in sanad walba ama dhowr sano kasta mar tirada bahallada gudaha ku jirta ay si weyn u kordho, arrintaas waxaa lagu magacaabaa dabayl weyn oo bahalo, Great Tidal Bore. Macalinka wuxuu intaa ku daray in xilligaas bahalo qaar ay dusha sare u soo kacaan, taasina tahay sababta ay magaalada u leedahay laba gidaan oo difaac ah. Rayuu wuxuu fahmay in gidaanka dibadda uu ka ilaaliyo magaalada cadowga bannaanka ka yimaada, halka gidaanka gudaha uu difaacayo magaalada bahallada godka ka soo baxaya. Amoon oo durbaba dareemayay walwal wuxuu u arkay inay arrintani tahay musiibo sugaysa inay dhacdo. Laakiin macalinka ayaa ku qanciyey inay dhacdo oo keliya dhowr sano kasta, marka aysan jirin wax laga baqo hadda. Markii ay galeen godka, Rayuu wuxuu arkay in Amoon weli u muuqdo mid kacsan, marka wuxuu isku dayay inuu dejiyo isagoo leh dhammaanteen halkan ayaan ku wada jirnaa, marka wax laga cabsado ma jiro. Macalinka wuxuu u sheegay inaysan jirin bahalo khatar ah dabaqa koowaad, marka way xor yihiin inay sahmiyaan aagga bilowga. Markii ay u socdaan in yar, waxay arkeen wax la yaab leh oo joojiyey. Rayuu wuxuu ku yidhi Amoon, waan qabtay adigoo adeegsanaya sixirkayga barafka, hadda adigu weerar. Waxay si degdeg ah ugu soo baxeen askari cayayaan ah, Soldier Ant. Rayuu wuxuu xasuustay in buuggii bilowga lagu qoray in habka ugu fudud ee lagu dilo cayayaankaas uu yahay in laga garaaco salka qoortiisa. Wuxuu bilaabay inuu rido sideed fallaar baraf ah si uu uga dhigo mid aan dhaqaaqi karin. Wuxuu ku booriyey Amoon inuu dhammeeyo. Amoon wuu u orday, wuxuuna taagnaa agagaarka qoorta cayayaanka, wuxuuna si xoog leh uga jaray qoorta. Taasina waxay siisay kalsooni weyn. Wuxuu uga mahadceliyey Rayuu oo ugu jawaabay, qaado dhagaxa sixirka ee jirkiisa ka soo baxay, waa astaanta guushaada ugu horreysa. Amoon wuxuu weydiiyey haddii taasi la ogol yahay. Rayuu wuxuu sharxay in sidii adventureryaasha ay dhaqaalahooda uga helaan godadka, dhagaxa sixirkuna uu yahay qayb muhiim ah. Kadib markii ay dhagaxa soo saareen, labadooduba waxay dareemeen farxad iyo faan. Habeenkii waxay ku laabteen ururka adventureryada guildka si ay u dabaaldegaan booqashadoodii ugu horreysay ee godka iyo dilkoodii ugu horreeyey ee bahal. Niels wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahayn inaan wax khamri ah cabno. Laakiin Ido ayaa sharxay in ururku aanu bixinin khamri, sidoo kale aysan ogolayn in laga keeno meel bannaanka ah. Wuxuu u malaynayaa in xeerkaasi ujeedkiisu yahay in laga hortago adventureryaasha inay cabaan. Niels wuxuu ka cawday in xeerarku aad u adag yihiin maadaama ay keliya dabaaldegayaan guushooda. Ido ayaa bedelay mowduuca isagoo leh, waan ku faraxsanahay inaad awooday inaad dishaan askari cayayaan ah, xitaa markay tahay booqashadiinii ugu horreysay. Amoon wuxuu sheegay in guushaas ay ugu wacnayd Rayuu oo bahalka barafka ku qabtay, taasoo siisay fursad uu ku weeraro. Laakiin Rayuu wuxuu ammaanay xirfadda Amoon ee seef wadaha, wuxuuna u sheegay inuusan is-hoosaysiin. Niels wuu faraxsanaa in ay heleen dhagaxii sixirka. Ido ayaa weydiiyey qorshahooda berri. Amoon wuxuu sheegay inuu rabo inuu mar kale booqdo godka, balse ma hubo inuu keligiis aadi karo. Rayuu wuxuu u soo jeediyey inuu la tago, wuxuuna sheegay inay isku dayaan inay gaaraan dabaqa saddexaad. Amoon si xiiso leh ayuu u oggolaaday. Rayuu wuxuu la yaabay in cayayaanka askariga ah lagu arkay dabaqa koowaad, iyo Niels oo sheegay in si caadi ah keliya jiiraha duula laga helo halkaas. Ido wuxuu sheegay in warar laga helay ay sheegayaan in cayayaanka lagu arkay dabaqa koowaad iyo labaad bilooyinkii u dambeeyey. Taasina waxay Rayuu ku reebtay su'aal ah, maxay halkaas uga jiraan? Si lama filaan ah, Abel ayaa ka soo muuqday gadaal, wuxuuna ku biiray wada hadalka, isagoo sharxaya in cayayaankaasi ay godad hoos u qodan karaan ilaa dabaqa koowaad. Rayuu wuxuu u arkay in adventureryaasha khibradda leh aysan si qarsoodi ah ugu imaanin kuwa cusub, maadaama saaxiibadii si cad uga naxeen. Laakiin Abel wuxuu sheegay inuu keliya la wadaagayo aqoon si ay uga nasato cabsidooda. Abel wuxuu u sheegay saaxiibada qolka Rayuu in inkasta oo Rayuu uu xoog badan yahay, uu leeyahay dhibaatooyin dabeecadeed, marka waa inay ilaaliyaan. Rayuu wuxuu dareemay in uusan doonaynin inuu dhib ku noqdo asxaabtiisa. Markii ay ogaadeen in Abel uu ka tirsan yahay kooxda seefta guduudan, Crimson Sword, Niels si degdeg ah ayuu u toosay, isagoo leh, anigu waxaan ahay seef wade Frank ah, adiguna waad iga geesi badan tahay. Ma gacanta ayaan isqaban karnaa? Abel si farxad leh ayuu u oggolaaday, taasina waxay Niels ka dhigtay mid aad u faraxsan. Abel wuxuu kula taliyey inaysan isdhibin, isagoo xasuusiyey in badbaadintu tahay mudnaanta koowaad ee adventure kasta. Niels wuxuu ballan qaaday inuu taas xasuusan doono. Laakiin Rayuu wuxuu isweydiiyey sababta Abel uu hadda u yimid hoolka ururka. Abel wuxuu sheegay in hawshoodii u dambeysay ay ahayd mid ka adag sidii la filayay, marka waxay ku soo noqdeen daasan. Markaas ayay saaxiibadiisa kooxda yimaadeen iyagoo la yaaban inuu halkaas joogo, maadaama la rabay inay la xisaabtamaan madaxda ururka. Abel wuxuu istifaacay isagoo leh, keliya waxaan caawinayay adventureryada cusub. Laakiin saaxiibkiis Warren ayaa kor u qaaday isagoo garbihiisa saaray. Abel wuxuu qayliyey isagoo Rayuu u yeeraya gargaar, balse Rayuu wuxuu yidhi, in warbixinta la bixiyo waa muhiim.
adiguna adigaa hogaamiye u ah kooxda waana inaad xilkaaga qaadatid. Abel si qosol ah ayuu u yidhi, ha qayaanow. Ka hor intuusan bixin, Liin ayaa timid iyadoo aamusan Rayuu si toos ah u eegaysa dhowr ilbiriqsi iyadoo aan wax hadal ah oran. Dhowr daqiiqo kadib, saaxiibada Rayuu waxay ka sheekaynayeen sida ay ula dhaceen kooxda seefta guduudan. Markii ay ammaanayeen Abel, Rayuu wuu fahmi waayey sababta ay ugu danaynayaan isaga. Dhanka kale, intii Abel loo waday madaxda ururka, Riya waxay Liin ku tiri, ha iska eegine qofka. Iyadoo maskaxda ku haysa sida ay u fiirinaysay Rayuu. Laakiin Liin waxay tiri, qof kasta wuu xiisayn lahaa kadib markuu maqlo Abel oo ammaanayo isaga. Abel wuxuu markaas yidhi, ha ka welwelin, goor dhow ayaad arki doontaan awooddiisa. Laakiin kuwa kale waxay u maleeyeen inuu iska ool iska dhigayay. Subaxdii xigtay, Amoon wuxuu aad u faraxsan yahay isagoo rabay inuu mar kale u laabto godka. Laakiin Rayuu wuxuu xasuusiyey inaysan waxba ku degdegin, wax walba tartiib tartiib loo maro. Markii ay gudaha u galeen, si dhaqso ah ayay ula kulmeen bahalo. Rayuu wuxuu ku weeraray fallaaro baraf ah, halka Amoon isagoo kalsooni ku qabo si degdeg ah uga falceliyey markuu Yey ku booday, wuxuuna si fudud u jaray jirkiisa. Yey kale ayaa si aamusnaan ah ugu soo dhawaaday Amoon, laakiin Rayuu ayaa ku dhuftay fallaaro baraf ah, taasoo siisay fursad uu ku dhameeyo. Markii ay dagaal walba dhameeyeen, Amoon wuxuu dareemay kalsooni badan. Rayuu wuxuu u sheegay in qaabka uu u dagaalamayo uu xasuusinayo Abel. Kadib wuxuu xasuustay in Amoon uu mar sheegay in macalinkiisu ahaa nin hore adventurer u ahaa oo ka yimid tuuladiisa. Amoon wuxuu sheegay in macalinkiisa la oran jiray Kira oo tababar ku qaatay iskuul caan ah oo ku yaal caasimadda. Rayuu wuxuu yidhi, waxaan aaminsanahay inaad noqon doonto seef wada weyn sida Abel. Amoon ayaa la yaabay sida Rayuu, inkasta oo uu yahay sixiroole, uu u leeyahay aqoon sare oo ku saabsan dagaalka seefaha. Rayuu wuxuu sharxay inuu hore u lahaa tababare, balse qaabkiisa dagaalka uu yahay mid gaar ah, sidaas darteed uusan ogeyn in uu xirfad sare leeyahay iyo in kale. Kadib Rayuu wuxuu weydiiyey Amoon haddii uu diyaar u yahay inay sii wadaan sahminta. Amoon wuxuu yidhi, haa, laakiin Rayuu wuxuu u arkay inuu weli u baahan yahay nasasho, maadaama qaabkiisa dagaalku u muuqdo mid tamar badan qaata. Wuxuu u soo jeediyey inuu bilaabo orodka subax walba si uu u dhisto adkaysigiisa. Wuxuu xasuustay sida Abel uu subax walba u tababaran jiray markuu kacayo. Rayuu wuxuu intaa ku daray in xitaa kuwa hibada leh ay u baahan yihiin inay si adag u tababartaan. Taasina waxay dhiirigelisay Amoon inuu isxoojiyo. Maalintii xigtay, Rayuu wuxuu u tegay maktabadda si uu wax badan uga barto sixirka la xiriira samaynta walxaha alchemy. Qofkii shaqaalaha ahaa ayaa siiyey dhowr buug oo hordhac ah. Mid waa buugga bilowga, midna waa buug cunto karis sixireed ah oo xambaarsan xog faa'iido leh. Markii uu dhameeyey akhriska, Rayuu wuxuu is yidhi, waxaan u baahan doonaa nuqulo aniga ii gaar ah haddii aan si dhab ah u rabay inaan alchemiga barto. Laakiin wuxuu isweydiiyey inta ay qiimaha ahaan noqon karaan. Si lama filaan ah, magaalada oo dhan ayaa mugdi galay, hoos ayaa cirka laga qaaday, cadceeduna way qarisan tahay. Laakiin Rayuu wuxuu dareemay in wax khaldan yahay, sidii adduunkii oo dhan isbedelay. Wuxuu dareemay qof gadaashiisa ka yimid, wuxuuna si degdeg ah u sameeyey dhowr gidaan baraf ah oo isdul saaran si uu uga hortago weerar dab ah oo ka soo dhacay cadow aan la aqoon. Markii qiiqu yara degay, Rayuu wuxuu arkay gabar Akuma ah, gabar Jinni ah. Gabadhii Akuma waxay la yaabtay in bini'aadam uu ku soo beegmo arrintan, balse si caadi ah ayay u tiri, waa iska macno darro, waxaanan kaa dili doonaa dhowaan. Markii uu dareemay awoodda weerarkeeda, Rayuu wuxuu fahmay inay tahay Akuma dhab ah. Wuxuu ogaa in uu u baahan yahay inuu baxsado, laakiin ma hubo inuu si dhab ah uga bixi karo xaaladdan. Gabadhii Akuma waxay samaysay kubad weyn oo dab ah. Rayuu ayaa mar kale sameeyey gidaano baraf ah, balse wuxuu arkay inaanay sida hore u adkayn. Waxay toogatay derbiga waxayna ku soo tuurtay fallaar dab ah, balse Rayuu wuu iska leexiyey, wuxuuna ka badbaaday dhaawac qalbiga lah. Waxay la yaabtay inuu awooday inuu joojiyo dabkeeda, waxayna sii yaabtay markii uu burburiyey fallaar dabayl ahayd oo ay riday. Markii ay aragtay marada uu xiran yahay, waxay garatay in ay ka timid boqorka la yaabka, Fairy King. Taasina waxay ku keentay xanaaq, waxayna tiri, waxaan rabaa inaan si fool ka fool ah kuu dilo. Gabadhii Akuma waxay si degdeg ah u weerartay, balse Rayuu ma uusan diyaar u ahayn inuu isdhiibo. Wuxuu soo bixiyey seef, wuxuuna bilaabay inuu ka hortago weeraradeeda isagoo si geesinimo leh u difaacaya. Waxay ku jeesjeesay inuu aad u gaabis badan yahay, markaas ayuu ku weeraray baraf, balse si fudud ayay uga leexatay. Rayuu wuxuu fahmay inay adeegsanayso sixirka dabaysha si ay si xawaare sare ah u dhaqaaqdo. Waxay si lama filaan ah hawada ugu booday, waxayna soo riday weerar xoog leh, laakiin Rayuu wuxuu ku qabtay seef. Wuxuu is yidhi, haddii aan difaac ahaado ma awoodi doonto inay i garaacdo. Wuxuu dareemay in weerarkeeda aysan xitaa gaarin dhibka uu ka soo maray tababarkii uu la soo qaatay dolahan. Gabadhii Akuma waxay aragtay inuu wato seefta boqorka la yaabka, waxayna bilowday inay isweydiiso waxa uu dhab ahaantii yahay. Markii ay bilowday inay samayso weerar dab ah, Rayuu ayaa si degdeg ah u burburiyey isagoo adeegsanaya fallaar baraf ah. Markii ay aragtay xawaarahaas, waxay la yaabtay, waxayna ku tilmaantay bahalka leh awood cajiib ah. Waxay garatay in Rayuu uu halis yahay, waxayna weerar ku qaaday isagoo adeegsanaysa xoog dhan. Laakiin Rayuu wuxuu burburiyey dhammaan weeraradeedii, wuxuuna dib u riixay isagoo ku ganay fallaaro baraf ah oo aad u waaweyn. Iyadu waxay si xoog ah dhulka uga taagtay laba gidaan oo dhagax ah si ay u xanibto weeraradiisa si wax ku ool ah. Markii ay islahayd way nabad tahay, Rayuu ayaa weerar lama filaan ah ka soo qaaday dhinaca sare. Wuxuu dhaawacay garabka iyo dhabankeeda, wuxuuna ku orday si uu sii wiiqo. Laakiin wuxuu arkay in dhaawaca hore durba bogsaday. Markii uu si kooban ula yaabay, waxay ku soo tuurtay dhisme agtaada. Gabadhii Akuma waxay u malaysay in dagaalku dhammaaday. Laakiin si lama filaan ah, dhibco biyo ah ayaa cirka ka soo daay.
markii ay taabteen jirkeeda waxay bilaabeen inay gubaan maqaarkeeda waxayna qaylisay xanuun darteed iyadoo caraysan waxay sii daysay mawjad weyn oo cabsi ah nasiib wanaag rayu waxaa badbaadiyey dhammaadka qorax madoobaadka gabadhii waxay isku soo bandhigtay iyadoo leh magacaygu waa lenoor laakiin rayu durba uu garanayay inay tahay akuma way la yaabtay in uu garanayo jiritaanka dadka noocaas ah taas oo micnaheedu yahay inay ahayd in ay disho balse way og tahay inaanay suuragal ahayn in uu guuldaraysto marka wakhtigu xadidan yahay lenoor waxay tidhi waan ku raaxaystay dagaalka waana ku arkayaa mar kale laakiin rayu ma jeclayn sidaas iyadu waxay ku adkaysatay inay kulmayaan mar kale sababtoo ah xooggiisa haddii aysan iyadu soo noqon waxaa suurtagal ah inuu la kulmo kuwa kale oo la mid ah taas waxay rayu gelisay fakar inuu jiro dad badan oo akuma ah adduunka ka hor inta aysan bixin waxay u sheegtay iska jir inaad isdisho sababtoo ah hadda noloshaada anaa iska leh lenoor waxay rajaysay inay noqoto mid ka xoog badan markay mar kale kulmaan kadibna si lama filaan ah ayay u baxday rayu wuxuu dareemay farxad in uu nool yahay wuxuuna rumaysnaa in sababta uu ku badbaaday ay tahay marada uu xihan yahay haddii kale garbihiisa waxaa ka ahaan lahaa dalool markaas ayuu go'aansaday tallaabada xigta inuu iibsado buugtii alkemiga wuxuu u dhaqaaqay inuu lacag kala baxo koontadiisa kadib markii uu lacag kala baxay rayu wuxuu dareemay farxad maadaama uu hadda taajir yahay wuxuuna u mahad celinayaa dhagxantii wifarnka ee uu ururkii u iibiyey wuxuu is yidhi ma jirto baahi nololeed oo hadda iga walwalgelin karta laakiin markuu ku laabtay qolkooda qofna kama joogin markaas ayuu go'aansaday inuu u dhaqaaqo dukaanka buugaagta si uu u iibsado buugaagtii alkemiga laakiin intii uu jidka marayay wuxuu arkay adventure iyo dhibaaya saaxiibadiis rayu wuxuu maqlay hogaamiyahooda oo leh waa inaad had iyo jeer u diyaar garowdaan weerar bahaladu digniin ma bixiyaan ka hor intuusan dhammayn rayu ayaa si toos ah ugu dhuftay bartilmaameed sax ah isagoo adeegsanaya sixir baraf ah hogaamiyihii daan ayaa carooday wuxuuna isku dayay inuu feer ku dhufto rayu laakiin rayu si fudud ayuu uga leexday wuxuuna madaxa kaga dhuftay birta seeftiisa derbigaas wuxuu sababay inuu matagto kadib rayu wuxuu siiyey saaxiibadiis dawooyin sixir ah si ay si deg deg ah ugu bogsadaan wuxuu sheegay inay daalan yihiin wuxuuna soo jeediyey inay isla tagaan ilaha kulul si ay u nastaan markii dambe ayay tageen ilaha kulul ida wuxuu bogsiiyey dhaawacii garbihiisa isagoo adeegsanaya sixir bogsiin ah ida wuxuu la yaabay in rayu uu dhaawacmay inkasta oo uu aad u xoogan yahay marka dagaal lagu jiro amoon wuxuu weydiiyey rayu maxaad la dagaalamayay maanta laakiin rayu su'aasha wuu ka meermeeray wuxuuna yidhi waan kuu sheegi doonaa wakhti kale markaan diyaar u ahay